وسودوينا أكتيفي وحلاها جيرو جوجا نولادا عدوين ونولادا هديدا أي سيسان وانيو مهد علنا gabdhaha iyo wiilasha markasta firiin iska gursadaan aad jeclahay waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka weydiimaha ee Haga Bulshada TV oo inta badan aan su'aalaha ku weydiino qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kismaayo su'aalahaas oo isku jira maadi iyo diini ku soo dhawaada ku soo dhawow barnaamijka weydiimaha Haga Bulshada TV waxaan ku weydiin doonaa saddex su'aalood laba ka mid ah haddii aad ka jawaabto waxaad leedahay abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta Haga Bulshada TV todo ودوها baashku waxay oranaysaa waxa sheegtaa shanta nabi ee la isku yiraahdo ulul azmi waxa sheegtaa su'aasha koowaad shanta nabi ee la isku yiraahdo ulul azmi su'aasha kale waxay oranaysaa waxa sheegtaa dalka Djibouti sanadkii uu xornimada qaatay dalka Djibouti sanadkii uu xornimada qaatay su'aasha kale waxay oranaysaa waxa sheegtaa madaxweynaha malaa'ikta saddex su'aalood ها ma yeeshidba ماي هذا ما سنتها كسر مرك هره برامجك ويديمها حاجة بلشة تيفي وحان ربنا كويديو لبس سؤالات هذا حال كم إذا كجوابته حلنا أول مرن هذا كجواب نصيب كذا واتاي سؤال شكود حيرنا يسا واحد شكتا مدحوينها ملايكتا واحد شكتا مدحوينها ملايكتا سؤال شكله وحيرنا يسا سؤال مادية واحد شكتا فسؤال شلبات تلك جيبوتي قرط حرمة قاعتي جيبوتي أي سؤال شكواد مدحوينها ملايكتا تلك جيبوتي قرط حرمة قاعتي لو أي سودو ملائكة ما قالوا أيوة تلك جيبوتي قرط حرمة قاعتي سنة شيك سنة ما قالوا لا مسكت على الوجن ما قالوا واتا أي محل هذا هاي رباهين تاعي حاجة بلش تيفي ربعين سلامة واتا هذا ما سنتها تكاد حرجنا انك سوق قبل سؤال اللي يوديك جوابه maxaa ugu baaqaysaa bulshada kala daawanaysa bulshada ka soo qayb gala dhee su'aal la isweydiino yahay anaka jawaabti soo dhawaada soo dhawow barnaamijka weydiimaha Haga Bulshada TV laba su'aalood baan kugu targan inaan ku weydiiyo labada su'aalood su'aasha koowaad waxa sheegtaa dalka Djibouti goorta xornimada qaatay su'aasha labaadna waxay oranaysaa sheeg magac ka kooban 7 xarfood 6 xarf ugu horeyso waa wax hilibkiisa la cuno halka afarta xarf u dambeysana diila kala qaato soo dhaw waa dhawahay ilaan mid kamid isku dayaalto midan hilibkiisa la cuntaas ugu aagto ma keeni kari tan Djibouti isku dayaa Djibouti waxay qaatay 1800 waxay qaatay 800 sagaashan iyo 7 ama 98 hal mid ugu 97 800 sagaashan iyo 8 su'aasha labaad wax saddex waxyaalood ka mid ah oo hilibkiisa la cuni karo afar kalena oo diyo loo kala qaadanayo qofka afar diyo mid saddexda si aad la cuni karo hilibka waxa waaye xoolaha waa shay kara ma wadate adiga jawaabta ka raac sidii ariga ama geela ama sidii idaha diyo waxa la kala qaadan karo waxa waaye sida qofka bini'aadanka camal waayo qofka silbis ma cuni karaa oo waayo xalaal ma aho diyo waa la kala qaadan karaa midda labaad ayadana waxa waaye diyo waxa loo kala qaadan karaa midda labaad waxa waaye ayadana ya eyga camal ha laba su'aalood ayaan ku weydiinay labada su'aaloodna maadan ka jawaabin waad hareer martay insha Allah waxaan ku rajeynayaa barnaamijyada kale aan qaban doono in aad nasiib u yeelato soo dhawo insha Allah ku soo dhawo barnaamijka weydiimaha Haga Bulshada TV laba su'aalood baan ku weydiin doonaa
haddii hal ka mid ah aad ka jawaabto waxaad leedahay abaalmarin su-aashkooda waxay tahay waxaa sheegtaa shanta nebi ee laisku yidhaahda ululcasmi su-aasha kale waxay tahay labaad waxaa sheegtaa dalka jabuuti sanadkii uu xornimada qaatay بسم الله الرحمن الرحيم ugu horreyn haddaan isku dayo su-aasha ugu horeyso ee ah waxaad sheegtaa shanta nebi oo ululcasmiga waxaa ka mid ah nebiyullaahi maxamed nebi ibraahim nebi nuux nebi ciise nebi muuse iyo nebi nuux su-aasha labaad haddaan isku dayo sanadka ay qaatay jabuuti xornimada waxaa waaye xilligay jabuuti qaatay waxaa waaye sanadka mal rabaa waxay qaadatay jabuuti waxay qaadatay xornimada 1965 aad u mahadsan tahay laba su-aalood baan ku weydiinay oo midna waxay ku saabsaneed dhanka diinta midna waxay ahayd maadiga su-aasha koowaadna si sax ah ayaad uga jawaabtay laakiin waad haleed martay su-aasha labaad sidaa darteed waxaad leedahay abaalmarin aan kugu talagalnay soo dhow waan dhowahay waa mahadsantihiin insha allah tvgana waxaa leeyahay hore u socda insha allah ummaddana su-aalaha diiniga ha loo badiyo si ay maaragtay ugu baraarugtaan diintooda haddiidan waxaa kugu talagashay haga bulsha t v maxaa firin oo u diraysaa بسم الله الرحمن الرحيم هاي بولشة تي في وحفرين أدريا إن براروجنت مدة وضو إنه هرقصي وضو وحنكر جينا إن شاء الله مستقبل كإنه هرس صار جارس إن شاء الله هذا ما سنتاه ما سنتي ذي كان كسروا مركه هراء برامج كويديمها هاجا بولشة تي في وحنكويدين دونا سدح سؤالات هديات لما كمدات كجوابته أول مرن أيام كسين دونا سروا كبدوه وطاه سؤال شكوى واضح أرنا يساوي حشكتا مدحوينها ملائكته waxaa sheegtaa madaxweynaha malaa'igta halka waa haysaa waa tahay su-aasha koowaad su-aasha kale labaad aan ku weydiinayo waxay odhanaysaa waxaa sheegtaa magac ka kooban 7 xaraf 6 xaraf oo ugu horeyso waa wax hilibkiisa la cuno afarta ugu dambeysana xarfaha ugu dambeeyo waa dii la kala qaato su-aasha kale waxay odhanaysaa ugu dambeysa sheeg magacyada laba dowladood oo ku yaala qaaradda afrika colaadna ay u dhexaysay waxaa sheegtaa magacyada laba dowladood oo ku yaala qaaradda afrika colaadna ay u dhexaysay hase yeeshee dowladdii kacaanka ay heshiis dhex dhigtay su'aad waxaa waaye waxay weydiisay madaxweynaha malaa'iga waa malakul jibriil su-aasha labaad oo ahayd laba dowladood oo afrika ka mid ah oo in badan uu dagaal ka dhexeeyey heshiisiisay dowladda kacaanka miyaa soo saas maa su-aashu allahuma istacaan allahuma istacaan maskaxdu way ka maqan tahay taas labada su-aalood oo dambe ma haysid ma hayo saddexda su-aaladan ku weydiinay su-aasha koowaad baad ka jawaabtay maadaama aan ugu talagalay inaan laba su-aal ka jawaabto aan abaalmarin ku siino waxba maadan haleelin waadna mahadsantahay soo dhowow waa dhowahay maasha allah isku dayga muhiim ku soo dhowow haga bulsha t v waxaan ku weydiin doonaa laba su-aalood oo diini ah haddii aad ka jawaabto mid ka mid ah abaalmarin ayaad leedahay laakiin haddii aad hareemartana waxaa miliyid su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay su-aasha koowaad aan ku weydiinayna waxay tahay waxaa sheegtaa madaxweynaha malaa'igta waxaa sheegtaa madaxweynaha malaa'igta su-aasha kale waxay leedahay waxaa sheegtaa nebigii lagu soo dejiyey kitaabka furqaan waxaa sheegtaa nebigii lagu soo dejiyey kitaabka alfurqaan waa dhow marka koowaad
marka labaad haddaa isku dayo su-aalaha jawaabtooda midda koowaad madaxweynaha malaa'igta wuxuu noqonayaa malakul jibriil calayhi salaatu wasalaam su-aasha labaad haddaa isku dayo kitaabka furqaan nabi lagu soo dejiyey nuux calayhi salaatu wasalaam labadii su-aalood aan ku weydiinay mid ka mid ah ayaad ka jawaabtay haga bulsha TV-na abaalmarintan ayay kugu talagashay maadaama aan su-aalaha ku weydiinay soo dhow maxaad leedahay haga bulsha TV waa dhow marka koowaad marka labaad aad iyo aad uga mahadsantihiin su-aalaha digin aad iyo aad ayuu u fiican yahay bulshadana dhiirigelinay u tahay waan mahadsantihiin soo dhow waa dhow marka hore soo dhow kuna soo dhow barnaamijka weydiimaha haga bulsha TV waxaan ku weydiin doonaa laba su-aalood labada su-aalood haddii hal ka mid aad ka jawaabto abaalmarin aad leedahay laakiin haddii aad hareen marta waxaa meliyid su-aasha koowaad waxay odhanaysaa waxaa sheegtaa madaxweynaha malaa'igta su-aasha koowaadna waxay odhanaysaa waxaa sheegtaa gobolka Gado inta degmo ay ku kooban yahay gobolka Gado inta degmo ay ku kooban yahay iyo su-aasha koowaad oo ah madaxweynaha malaa'igta su-aasha koowaad madaxweynaha malaa'igta waa malakul jibriil calayhi salaam su-aasha labaadna oo maxaa dhahday tan labaad gobolka Gado inta degmo uu ka kooban yahay Gado wuxuu ka kooban yahay 5 degmo su-aasha koowaad waad ka jawaabtay laakiin su-aasha labaad maadan haleelin bas laakiin waxaad leedahay abaalmarin haga bulsha TV maadaama aad su-aalihii ka jawaabtay abaalmarintan ayay kugu talagashay maxaad leedahay waa soo dhaweynayaa aga TV waxaan leeyahay jiro jooga noolaada cadowgiina u noolaada hadiida ay siiseen waan iiga mahad celinayaa ku soo dhowow barnaamijka weydiimaha haga bulsha TV su-aasha koowaad waxay odhanaysaa su-aal diini ah waxaa sheegtaa sanadka uu soo degay qur-aanka kariimka su-aasha kale waxay odhanaysaa waxaa sheegtaa madaxweynaha malaa'igta bismillaahi raxmaan raxiim waan dhowahay su-aasha ugu horeysa oo muxuu ahaa qur-aanka uu soo degay waxaa waaye ugu soo celi su-aasha ugu horeysa waa su-aal diini ah waxaa sheegtaa sanadka uu soo degay qur-aanka kariimka labada su-aal aan ku weydiiyey su-aasha kood aad ka jawaabto abaalmarin aad leedahay mid ka mid haddaad ka jawaabto waa tahay su-aasha kood waxay odhanaysaa waxaa sheegtaa sanadka uu soo degay qur-aanka kariimka iyo madaxweynaha malaa'igta inaad sheegto labadaba su-aasha ugu horeyso midda labaad ayaan ka jawaabayaa su-aasha waxaa waaye malakul jibriil su-aasha labaad jawaabteeda taas waaye midda koowaad laakiin waa igar maqan waa tahay aad u mahadsan daawadahan saaxiibkeenna ee barnaamijka qayb ka ahaa laba su-aalood baan ku weydiinay su-aasha koowaad waad khaladay halka su-aasha labaadna aad ka jawaabtay sidaa darteed abaalmarin ee kugu talagashay warbaahinta haga bulsha TV soo dhow warbaahinta haga bulsha TV waxay kugu talagashay abaalmarintan maadaama labada su-aalood mid ka mid ah aad ka jawaabtay soo dhow waxaad odhanaysaa bulshada maxaa u baaqaysaa bulshada waxaan ugu baaqayaa inay mar walba ay ka faa'iidaystaan muxuu ahaa barnaamijyadan oo TV-gu uu soo sii daayo waana idin salaamayaa ramadaan kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan waxaa halkaasi inooga eg barnaamijka weydiimaha ee haga bulsha TV oo inta badan aan su-aalaha ku weydiinaynay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kismaayo way ku mahadsan yihiin saaxiibada sida sharafta leh uga qayb qaatay barnaamijka aan su-aalaha aan ku weydiinay barnaamijkana waxaa si toos ah halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Safwaan halka kaamirada qurux badan uu duubayay kaamirmaanka fartanka xiran ee PK waxaan idin leeyahay barnaamij nimada intaan dib isku kulmi doono sida iyo amaan Allah barnaamijkana si share gareeya